وإذن سلام دمانتين ميل بعد جلسة عطان كسر دوادا مركلة إيو حجالة بودكاست برنامج كمان توحنا كسر قادم دونا قاب كلو قرر ورقد عطسي شقدا وجورين وحرب أنا كوت المعمو قلادات كوجو بدن إذا لين رد جلان مركل ورقد عطسي قرنيان كدي بوحنا كهال دونا قلادات كسقاب كأسرع كرتيد إيو صدق دقيقة إكاكو منتهى قرالك ورقد عطسي مركل قريسي وقدام بينهم حنكسينا يعني إن شاء الله تلوين جود وهدي الرعدي أنسلايا هاي وحبدنا آيات كفاية دونتها قلاداتك ugu badan ee dadka ka sameeyaan waxa weeyaan dad badan oo xaajiro warqad ay diyaarsanayaan oo warqad codsi shaqo ah application ah kadib shaqo kasta ay arkaan title-kii magaca inta ka bedelaan ay u dirayaan taasna waa waxyaabaha dadka badan looga soo tago maxaa yeelay shaqo kasta oo codsanaysid shaqadii hore la mid ma aha mid walba mid kale way ka duwan tahay hatta haday isla hay'adaas ay tahay ama programka ama departmentiga codsanaysid isku mid ay yihiin mar walba way ka duwan tahay shaqooyinka maxaa yeelay waxa la doonayaa xirfado gaar ah qofka waxa la rabaa warqada codsiga uu qoranayo in la xiriirto shaqadaas kaliya waxay tahay haddaysan isla xiriirin marka ugu horeyso qofka akhrinayo uu ka dareemay inaa meel kale ka hadlaysid ama aysan ahayn warqadan waa la fahmi karaa in warqad generic tahay oo general ah ku diyaarsan waa laga tagayaa marka insha Allah isku day mid mar walba qoraysid inay mid gooni ahaato qaabka u qori lahayd hadda ka wada hadlaynaa waa tahay saddex qayb marka u kala qaadaynaa qaybta koowaad oo ah warqada codsiga introduction-ka qaybta hordhaca iyo qaybta labaad oo qaybta body-ga oo aga hadlaysid waxyaabaha ma aragtay oo ugu muhiimsan qaybta saddexaadna waa gunaanadkii qaybta koowaad oo introduction-ka ama hordhaca waxa ku qoraysaa adiga qofka tahay khibradda aad leedahay iyo shaqada markaas aad soo codsatay straight to the point meeshan waxa la doonayaa inay ahaato meel ma aragtay qaybta ugu horeyso iyo warqadoo dhanba markaa qoraysid inay warqad kooban tahay straight to the point ay tahay brief ay tahay oo aadan ma aragtay ka hadlaynin waxyaabo dhaadheer ma isku dayin xitaa inaad aad qofkan tusid inaad wax qatar garanaysid waxa la rabaa inaad si yaro simple ah aad u soo koobtid khibradda aad leedahayna aad ma aragtay meeshaas ku qeexdid haddii aad soo jiidatid markaas attention-kiisa wuxuu akhrinayaa qaybta labaad ilaa qaybta saddexaad hadduu ku qancana waxa laga yaabaa markaas inuu kugu darsado dadka uu markaas shortlistiga ugu yeeri doono interview-ga qaybta labaad oo body-ga ah waa qaybta ugu muhiimsan waxaa markaas kaga hadlaysaa qualification-kaaga iyo adiga ma aragtay waxaad soo baratay oo ah wax la xiriira waxa aad codsanaysid meeshan marka waxa la rabaa inaad si fiican shaqada la soo dhajiyay qofkan xirfadaha ay doonayaan iyo adiga achievement-iga aad gaadhay ama horaan waxyaabaha u soo qabatay guusha aad soo gaartay shaqooyinka la soo qabatay inaad ku dabaqdid oo aad dhahdid shaqadan micnaha aan soo codsaday iyo tii horaan u soo qabtay way isleeyihiin tii hore heerkan ayaan ka soo gaaray tanna waxaan rajaynayaa in aan khibradaas uga faa'iideysto inaan heer idin gaarsiiyo waxaad tusaysaa markaas waxaa miidka la soo fariisanaysid waxaa ku soo kordhinaysid qaybtan waxaa kaloo la rabaa inaad ma aragtay personalize garaysid inaad micnaha ka hadashid tusaale ahaan dabeecadaada iyo shakhsiyadaada si hadhow qofkan maxaa yeelay waxyaabaha kaliya la doonayo ma aha qof ma aragtay PhD wato kaliya lama doonayo ama experience leh qof waxaa la doonayaa lala dhaqmi karo oo dabeecadiisa dadka siduu ula dhaqmo waxaas dhan qof ma aragtay furfuran team player ah ala doonaya inaad ku qeexdid si yaro ma aragtay professional ah oo aadan ma aragtay ka badbadisna ahayn inaad ku qortid oo qofkan marka warqadaada qiimeenayo waa qof bini aadana adiga camal ah feelings uu leeyahay emotions uu leeyahay marka waa ina uu ka dhax arkaa hadhow haduu ku shaqaaleysiiyo qofka aad tahay noocee ah kaliya qof micnaha shahaadooyin waaweyn wata miyaa mase qof bini aadan oo la dhaqmi karo xataa haddii hadhow ay shaqada pressure badan imaato qof degan ma yahay sidoo kale waxaa muhiim ah qaybtan body-ga ama qaybta dhexe in wax walba aad sheegatid cadeynteedana aad soo raacisaa inaad qortid haddii aad abaalmarin ku guuleysatay abaalmarintaas waxay ahayd iyo sidii lagu siiyay iyo waxa ay ahayd si yaro kooban inaadan micnaha iska dhihin waxaas ahay balse cadeyn aad soo raacisid loo baahan yahay qofka markaas akhrinayo wuxuu arkayaa wixii aad ma aragtay sheeganaysay inay yihiin wax cadeyn la socdo oo hadhow hadduu ku yeero xitaa interview-ga uu ma aragtay ku weydiin karo qaybta saddexaad oo ah conclusion-ka ama qaybta gunaanadka waxaa la rabaa inaad ku qortid sida aad u danaynaysid ama xiisaha badan aad u haysid shaqadan sidoo kale waa inaad ku cadaysaa inaad diyaar u tahay wareysiga shaqada ama interview-ga haddii lagugu yeero aad diyaar u tahay inaad imaatid ama aad xilli kastoo lagu baahdo aad adiga markaas sheegtid inaad interview aad geli kartid ama diyaar u tahay qaybta ugu dambaysa marka waxaan rabaa inaan ku siiyo talooyin guud oo haddii aad raacdid aan isleeyahay waxay ka caawinaysaa diyaarinta aad diyaarinaysid ama qoraalka aad qoraysid warqada shaqada aad ku codsanaysid number 1 saan soo sheegay warqadan waxaa loo baahan yahay xoogaa inay shakhsiyan aad kaga hadashid shakhsiyadaada oo kaliya aadan ku ekaanin qualificationskaada iyo khibradaada kaliya aad ku ekaanin inaa hadalladaada iyo qoraalkaaga u gagaabto
qaabka u qoraysid qaybta koowaad bum 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 waxaa la rabaa sentensiyo gaaban inaad isticmaashid xataa waxaa la fiirinayaa formatkaaga hadday warqadaada isku dhex daadsan tahay oo paragraph ayna lahayn oo qaybo kala go'an ay lahayn oo isha markay qabato ay organize garaysnayn qofkan ma akhrinayo waxaa u tuuraya waxaa la fiirinayaa formatka isticmaashay sidee u kala go'an tahay ereyada isticmaashay sidee uga gaaban yihiin ma la fahmi karaa waxa sheegaysid ma la xiriirtaa waxa aad soo codsanaysid iyo waxa sheeganaysid iyo waxa qofkan uu rabo ma isla yihiin intaas dhan waxay tusinaysaa qofkan inaad tahay qofkii la rabay oo boqolaalkan kale maaragtay lagala dhaxbixi lahaa intaas ayaan kusoo koobayaa maanta waxaan rajeynayaa inaan wax badan ka faa'iiday hadday jiraan waxyaabo muhiim ah aan ka tagay fadlan commentiga iigu soo qor sidoo kale waxaan ka codsanayaa inaad barnaamijkan ama pagekan ku xirnaatid lana wadaagtid asxaab badan waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaali oo aad u xiiseynaya barnaamijyada noocan balse aan ogeyn fadlan gaarsii waxaan kaloo kuu sheegayaa haddaad mar dhow rabtid interview inaad samaysid waxaa jira barnaamij gaar ah oo aga hadlay qaabka loo diyaariyo wareysiga pageka ayuu ku jiraa daawo insha Allah waxaan hubaa inaad wax badan ka faa'iidi doontid inta aan barnaamijka xiga ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo